waxaa jira qaladaad guud oo aynu dhammaanteen u sameyno kuwaasi oo si qonyar ah u baabi'iya xushmadda iyo qadarinta ay dadka noo hayaan. Qadarinta iyo xushmadda dadka maaha mid inta badan lagu helo habeeno gudahood, balse waxay u baahan tahay kasbasho. In aad kasbataana waxay u baahan tahay shaqo adag iyo samir. Ficilada aan ku sheegi doono oo aad samaysaa waxay hubaal ka dhigayaan qof ay dadku aad u xushmeeyaan. kow samee wax ka fiican waxa ay dadka kala sameeyaan. Waqtiga aynu joogno uma baahnid in aad noqoto geesi halgamaa ah si lagu qadariyo, balse waa inaad samaysaa wax dadka kale ay maareen waayeen inay sameeyaan. Haddii aad maskaxdaada ka baarto dadka aad inta badan xushmayso, waxaa kuu soo bixi doonta in dadkaas ay aragti ahaantaada ku guulaysteen samaynta waxyaabaha waaweyn, isla markaana ay dadku si fiican ula dhaqmaan. Bini'aadin ahaan ma jecelna inaynu aragno dadka kale oo inaga fiicnaanaya. Marka aynu aragno qof sameeyey waxyaabo cajiib ah isla markaana haddana si fiican inoola dhaqma, waxaa hubaal ah inaan qofka qadarino. Weligaa qof waxba ha ka barin. Haddii aad qof wax ka rabto, dhibaato male inaad qofka weydiisato, balse weligaa ha baryin. Bini'aadin ahaan waxaynu ka soo qaadnaa in qofka ina baryaa uu inaga daciifsan yahay, waxaana adkaanaysa inaanu qofka xushmeyno. Sidaa daraaddeed qofna weligaa waxba ha ka baryin. Weligaa ha noqon qof baahi badan. Haddii aad baahi u qabto in dareen ahaan laguu taageero, ama aad baahi u qabto qof aad jeceshahay, shaqo, lacag ama wax kastoo kale, weligaa dadka ha tusi in waxa aad ugu sii baahan tahay. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inaanu waxba u arag inay arkaan qof baahan, balse dadka badankooda qofka hoos ayay u eegi doonaan. In aad dadka ka tambadiso codsiyo badan, telefoon wicis badan ama su'aalo badani waxay sababaysaa in qiimaha aad agtooda ku leedahay uu aad hoos ugu dhaco. Helini maysid xushmadii aad rabtay. Ku istaag cagahaaga. Dhammaanteen waxaynu nahay bini'aadin. Waxaan dhammaanteenu galnaa waqtiyo adag. Dhibaatana male in aad marag qaar qaylido, oydo ama aad samayso waxyaabo aad dareenkaaga xun ku muujinayso, balse weligaa waxyaabaha ku horsameen dadka hortooda, xataa marka aad naxariin aad u weyn dareento. Ku istaag cagahaaga oo iska dhig qof degan, dadkuna aad bay kuu xushmeyn doonaan. 5 xushmee naftaada. Waxaa aad u adag in aad dad kale xushmad ka hesho haddii aadan adigu naftaada xushmeyneen. Si aad naftaada u xushmeyso, ilaali balanta aad naftaada la gasho. Aamin qiimaha adigu leedahay. Sidoo kalena ha ka baxsan dhibaatooyinkan aad nolosha wajahayso ee la tacaal. Ugu dambeyntii waxaa hore loo yiri Roma maalin qor laguma dhisin. Waqti ayay qaadanaysaa in aad dabeecado cusub barato oo aad la qabsato, dadkuna ay ogaadaan dabeecadahaas. Ku dadaal qodobada aynu soo sheegnay. Waxaa hubaal ah in dadku aad ku xushmeyn doonaan. Si ay ku soo gaaraan muuqaalada xigay aan soo gelin doono, fadlan subscribe saar channelka, like garee, share. Fikirkaaga waa muhiim.